السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قيارتي soo dhawaada waa mar kale barnaamij kale barnaamijkeena maanta insha Allah taala waxaan ku qaadaa dhigi doonaa laba qodob oo labadaba ku saabsan arrimaha soo galootiga iyo hay'adda ICE oo iyadu ku foogan qabashada iyo tarxiilida dadka soo galootiga ah waxaan eegi doonaa insha Allah qodobka koowaad oo ah in ICE awoodeedii ay isticmaali jirtay ee xad dhaafka ahayd dib loogu ogolaaday kadib markii maxkamad ku taala gobolka Minnesota ay soo saartay go'aan tan kale waxaan eegi doonaa insha Allah taala in hay'adda ICE ay isticmaali karto warranty iyada ay soo qoratay si ay guryaha si xooga ugu soo gasho oo ay dadka barkiis ogala soo baxdo haddii aad nagu cusub tahay subscribe to the channel hadda hore noola joogtay like and share the video waa idinka mahad celinaya sidoo kale facebookeena follow dhac ku sii insha Allah marka bilaaway waxa hay'adda ICE maanta loo ogolaaday in ay awoodihii hore ay isticmaali jirtay iyo dhaqamadii hore oo ay ku dhaqmaayeen oo dad fara badan ay ku macneeyeen inay awoodo xad dhaaf ah isticmaalayaan ayaa maanta waxa loogu soo celiyay dib kadib markii maxkamadda sideedaad ee maxkamadda racfaanka ee federaaliga ah ay ogolaatay in ay joojiso go'aankii ka soo baxay maxkamadda hoose ee district courtiga oo ay go'aamisay judge Kate Menendez maalinkii dhaweyto kaas oo ku saabsanaa in dadka sida caadiga ah oo nabadgelyada ah u mudaharaadayo oo aan wax dhibaato awadin oo guryaha aan jajabinaynin wax aan bililiqaysanaynin oo wax anything oo rabshado wata aan ku jirin oo si nabadgelyo ah u mudaharaadayo aan loo isticmaali karin sunta dadka ka ilmaysiisa oo la arkay in officer kamid ah officeradaas ay isticmaalayeen iyo sidoo kale in aysan gacan qaad aysan u geysan marka qof ay xiraayaan tan kale waxa ay ka reebtay in ay awood xad dhaaf ah u isticmaalaan xilliga ay ku guda jiraan howlgalladooda iyo xiritaanka muwaadiniinta dalka Mareykanka ama dadka muwaadiniinta ah ee ku nool magaalada waxa marka arrinkaas uu keenay ama ay ku macneysay iyada in ay u aragtay in dhibaato xoog leh iyo arrin danger ah ay ka muuqato awoodda xad dhaafka ah iyo daandaansiga ay ku daandaansanayaan askarta ICE oo firimbiyo lagu yeerinayay rabshado laga dabawaday in ay marka ay talaabo qaadayaan maadaama askartii iyaga ay yihiin oo federaaliga ah ay yihiin awoodna ay ka awood badan yihiin dadka shacabka ah inaysan awood xad dhaaf ah u isticmaalin maxkamadda racfaanka ee sideedaad ayaa maanta waxay ogolaatay arrinkaas in freeze la geliyo inta dowladda federaalka ah ay la soo baxayso go'aamo cad ay la imaanayso iyada iyo looyaradeedaba si ay appeal uga qaataan oo arrinkan ay maaragtay si fiican ugu fiiriyaan oo maxkamadda ay go'aan rasmi ah ay ka gaari doonto laakiin haddeer go'aankan waa go'aan ku meel gaar ah waxaana uu awoodii ICE ay lahayd dib ugu soo celiyey iyo tactigii isticmaalaysay iyo dhaqankii ay kula dhaqmaayeen dadka shacabka ah oo iyagu ka soo horjeeda dadka la qabanayo qodobkaas waxaan insha Allah taala rabaa inaan ku daro qodobka labaad oo ku saabsan arrinka warranty-ga iyo guryaha ay soo galayaan sidaad wad ogtihiin dalkan Mareykanka soo galitaanka guriga uu soo galayo officer law enforcement ah waa ka mamnuuc haddii uusan wadanin warranty uu soo qoray qof judge ah haddaba waxa dhacday warrantyada labay kala yihiin midna waa mid oo judicial warranty baa la yidhaahdaa oo nin judge ah oo maxkamad jooga ayaa soo qoray oo ay ku qanciyeen in gurigaas ama hoygaasi uu ka socdo arrimo sharci darro ah oo probable cause waxa la yidhaahdo oo meeshaan wax inay ka jiraan ay ku qanciyeen judge-ka marka uu arkay evidence-ga iyo caddeymaha ay soo bandhigeen ciidamada ama law enforcement-ga markaa kadib ayuu soo saxiixaa judge-ka sometimes arrinkaas isaga ah waa arrinka waxaana keenay fourth amendment-ga ama qodobka afaraad ee dalkan dastuurka Mareykanka arrinka isaga ah waa judicial warrant marka dad fara badan ayaa waxa loo sheegay in haddii aysan wadanin judicial warrant inaysan soo geli karin gurigaaga haddaba waxa dhacday memo ama warqad ay heshay shirkadda wararka ee AP ayaa waxa ay ku qoran oo ay sheegayaan in officerada ICE lagu tababaro kuwa hadda tababarka ka soo baxayo iyo kuwa kaleba in lagu tababaro loona sheego in haddii administrative warranty waxa la yiraahdo ay wataan oo qofna ay ku og yihiin gurigaas qofkaasna uu qof judge ah oo maxkamad joogay
uu u soo gooyey removal order dalka in laga saaro uma baahna baa la yidhi inay warrantiga ay wataan judicial ay noqoto waxa ay isticmaali karaan baa la yidhi si gurigaaga si xooga weli ugu soo galaan waxa ay isticmaali karaan waxa loo yaqaano administrative warrant administrative warrantiga still waa inay ahaataa warqad warranty oo la soo saxiixay laakiin qofka saxiixayo baa different wuxuu ka yahay ka duwan yahay qofka maxkamadda markii la tago soo saxiixayo qof senior ah oo sare oo mas'uul ah oo ice ah oo maaragtay xukumo iyaga oo kale baa warqadda soo saxiixi kara marka ay u caddeeyaan in gurigaas uu ku jiro qof aan sharci lahayn oo sharci lahayn kaliya ma ahe warqadna haysta judge in uu dhahay dalka ama ka bax ama loo soo qoray in dalka laga saaro so haddii ice waxay yidhaahdeen hadday aan haysano warqad sheegaysa removal order inuu haysto qofkaas dalka in laga saaro guriga waxay usoo qaadanayaan administrative warrant bay usoo qaadanayaan oo iyaga ay soo qorteen usually qof madax ah qofkaas saxiixiisa iyo warrantigiisaasna waa valid as long as qofka ku jira guriga oo ay ku tuhunsan yihiin ku jira uu yahay qof haysta removal order dalka in laga saaro oo judge uu ka haysto so tii judgeka ay maaragtay ka dhigayaan in ay tahay tii saxda ahayd ayagana tooda ay tahay mid oo suubis ah oo ay ku kordhisanayaan si ay u sharciyeystaan guriga in ay soo galaan ay ku tuhunsan yihiin qof haysta arrinkaas in uu jiro marka waxaa kale oo aan rabaa insha allahu tacaala in aan idinku daro dad waxaa jira badan oo dhalasho haysta kuwa inta ku dhashay hataa way jiraan oo ice ay qabatay oo xirtay marka dadkaas waxaa ka mid ah dad badan oo dhalinyaro ah oo yaryar waxa dhibta ugu weyn ay noqotay qofka in uu intuu naxo uu iscadeyn waayo qofka markuu naxo niman indhe xiran qoryo waaweyn wata kulli wada hubaysan hadday geesaha intay kasoo maraan cunug yar waxa badanaa dhacayso qofkaas inuu intuu naxo uu u jawaabi waayo uu u sheegi waayo hataa inuu citizen yahay marka arrimahaas ayaa iyagana hadda baryahan dambe soo badbadanayo haddii ay ku qabtaan odayaasha si caadiya oo degan ula hadal hadday sharci ku weydiiyaan sharcigaaga si wixii ay kaa rabaan u sheeg inaad citizen tahay ugu soo celceli markay kusoo baaraan iyagaa kusoo ogaan doona oo kusoo dayn doona laakiin waxaa dhacday in dadka intay naxaan ama ay cararaan ama qofka waa iska dhalinyaro ciidamo kusoo ordaayo markuu arko indhe xiran oo hubaysan inuu afduubi rabo hataa ma oga marka qofka waxaa dhacdo badanaa in ay cararaan ama ay naxaan ama ay hadli waayaan icena ay uma qaadato qofkaas in uusan wax sharciya uusan lahayn marka arrinkaa isaga ana laga feejignaado haddii ay aragtaan nimankaas oo si caadiya oo degan oo calm ah ula hadal sharcigaagana u caddee inaad citizen tahayna u sheeg marka arrinkan usually waa iska fudud haddaad si tartiiba wax u samayso marka arrinkan waa loo ogolaaday hadday dhahaan marka judicial warranty baan wadanaa way soo geli karaan guriga hadday dhahaan administrative warranty aan wadanaana oo ay qofka ku og yihiin removal orderka haysto oo dalka in laga saaro ah iyadana way soo geli karaan oo xoog way kusoo gelayaan gurigaaga arrinkaas wixii ka badan wixii hore lasu sheegayay wax yar baa ka duwanaaday marka hore waxaan dhihi jirnay qofka haddii aysan wadanin judicial warranty guriga ma soo geli karaan laakiin haddeer waxaa u muuqataa hadday administrative warranty wataan laakiin ay qof ku tuhunsan yihiin meesha inuu ku jirana way soo geli karaan labadaas arrin ayaan rabay inaan idinka dabageeyo iyo of course xalahaas dambe oo suubiska ah waan idin salaamahayaa waad salaamantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Don't forget to subscribe to the channel, like and share the video inshallah.